السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعي قوة دكتور محمد قوليد وكميدة تقاتير ترير فيلن كان هو القلسبتال جامعة تامبري قيبتيسا cudurada wadnaha iyo dhiig mareenka takhasuskeega insha Allah taala waxaan wadnaa baraarujintii ku aadaneed cudurka aadka dunida ugu faafay coronavirus maantana waxaan ka hadli doonaa insha Allah taala sababaha keenay in wadamo badan ay qaataan go'aamo adag oo xadidayo isku socodka bulshada sababtiin Finland go'aankaas ayay iyadana dhinaceeda ka qaadatay oo iskooladii waa la xiray maqaayadihii waa la xiray dadka isku socodkooda aad ayaa loo yareeyay gobolka caasimadana Uusimaana waa completely waa laga xiray waddanka intiisa kale oo qof soo gali kara qof bixi kareeto ogolaansho la'aan ma jiro dabcan sababta koowaad waa maaragtay in muxuu ahaa medically epidemic-gan jiro uu yahay mid saameyn leh especially saan hore uga hadalnay dadka maaragtay waayeelka iyo dadka cudurrada kale hore u qabay isku gudubka mise transmissionka gudbinta viruskana uu yahay mid aad maaragtay xawli ah oo halkii qof lagu tilmaamay inuu 3 qof gudbin karo 3daas qofna ay hore u sii gudbin karaan ilaa 10 markii wareegaas socdana lagu qiyaaso ilaa 59,000 oo qof inuu markiiba gaari karo marka dabcan waa maaragtay medically waa wax maaragtay muxuu ahaa saameynteeda leh laakiin taas waxaa la socoto oo marmarka qaar laga maaragtay ay ka hormariyaan epidemiological sabab inay leedahay taasoo ku salaysan in muxuu ahaa bulsho walbaba ay leedahay capacity oo maaragtay ay caafimaadka dadka ugu gudbin karta macnaha ugu adeegi karta adeeg caafimadeed macnaha isbitaaladii inay xadidan yihiin in maaragtay muxuu ahaa takhaatiirta ka shaqeynaysa xadidan yihiin in mashiinadii iyo qalabkii ay xadidan yihiin marka cudurkan oo epidemiga oo aadka u socdo aadka u faafayo dad badan saameynaya haddii marka muxuu ahaa waxba laga qabanin oo maaragtay faafidii aan lasoo xadidin oo lasoo yareenin waxay keenaysaa in dad badan hal mar ay isla xanuunsadaan loomana hayo marka capacitygii loogu adeegi lahaa dadkaas oo waxay u baahnaayeen adeeg caafimaad ay u baahnaayeen lagu sameeyo dabcan waxaa kaloo ogtihiin corona viruska iyo cudurkan covidka jiridiisa macnaha ma baabi'inayso cuduradii kale oo dadka maaragtay isbitaalka ay u geli jireen sida dadka skrooga ku dhaco sida wadnaha cuduradii wadnaha iyo wixii lamid ahaa marka iyagana boosaskii iyo adeegii caafimaad sidii ugu baahan yihiin marka muxuu ahaa martaas ayaa waxay keenaysaa marka in keentay in marka la xadido oo maaragtay faafidii la yareeyo marka waxaan rabi lahaa in graph yar aan maaragtay ku sharxayo arrintan aan idinla wadaago graafkan waxaan ka keenay CDC-da hay'adda cudurrada faafa ee Mareykanka waxaan isleeyahay dad badan iyadoo kala nooc ah meelo badan way ku arkeen haddaa fiirisiin calaamadan kala go'an xariiqtidan kala go'an oo dhaxda marayso waxay tusaysaa waddankaas adeegiisa caafimadeed intuu la eg yahay garaafkan koowaad marka oo gaduudan wuxuu tusayaa haddii aanan wax maaragtay tallaabo ah aysan qaadin dowladda in ay maaragtay muxuu ahaa uu aad u faafayo cudurkii oo maaragtay kiisaskii uu aad u badanayo dabcan kiisaskii oo batana dhimashadii way la socotaayo way badanaysaa marka saa ujeedinbo way gudbaysaa wayna dhaafaysaa xadkii oo maaragtay capacitygii loo lahaa in bulshada adeeg caafimaad loogu sameeyo middan buluuga marka waxa waaye haddii markaas dowladahaasay hadda sameeyeen ay gaaraan go'aamo xadidayo in viruskii uu faafo saa ujeedii marka waxa la isku dayayo waxa waaye in garaafka uusan ka kormarin muxuu ahaa capacityga uu leeyahay adeega caafimadeed loo leeyahay adeega caafimadeed dabcan waxaa marka saa ujeedin u arkatin in maaragtay uu ka dheeraanayo waqtigii epidemiga uu soconayay laakiin taas waxaa maaragtay lagu justify garaynayaa mise muxuu ahaa in caseski la wada qaabili karo qofkii u baahnaana maaragtay muxuu ahaa caafimaad adeeg caafimadeed uu heli karo xaaladda Finland marka haddaan usoo laabano THL oo ah hay'adda cudurrada faafa oo qaabilsan waddankan Finland xisaabaad ay samayso waxay soo saartay in markii cudurka uu ugu badan yahay
ay u baahnaan karaan isbitaal ama adeeg caafimadeed 11,300 oo qof markii ugu yaraato ugu badnaan waxaa la gaarsiiyaa ilaa 15,000 oo qof 3,600 ay ICU intensive care ay u baahan tahay ilaa 5,000 waa la gaarsiiyaa marka haddii hal mar ay intaan u baahan tahay adeeg caafimadeed Finland waxaa lagu qiyaasaa marka in ICU bedska sariiraha ICU-ga iyo mashiinada ay haystaan marka caadiga ah 250 ilaa 300 ay tahay haddana ay dowladda ay sheegtay ilaa 1,000 inay gaarsiin karaan marka 1,000 bed hadday haystaan mise 1,000 sariir oo ICU hadday haystaan dadka u baahanna ay yihiin markii ugu yartahay 3,600 haddii la badiyana ilaa 5,000 ay gaarayaan 1,000 sariirna la haysto 1,000kaas haddii loo helo inta kaleeta marka maxaa lagu qabanayaa tanna waa markii laga hadlayo keliya corona iyo cudurka covid oo aanan xisaabta ku jirin cuduradii kale oo marka sidii u socdo marka sidaas awgeed waxaa muhiim ah in aanan muxuu ahaa cudurkii faafidiisii la xadido si maaragtay muxuu ahaa capacityga loo leeyahay in adeeg caafimaad la bixiyo uusan maaragtay muxuu ahaa uusan culays aad saarmin takhaatiirtii ka shaqaynaysa sidoo kale iyaga waxa waaye takhaatiir oo qof dhakhtar kasta kama shaqayn karo si loo socdo takhaatiir intensive care-ka u leh maaragtay khibrad ay u baahan yihiin iyagina waxa waaye waa xadidan yihiin oo waa yar yihiin neerski sidoo kale u shaqaynaya qalabkii oo la isticmaalaya sida maaragtay maaskiyadii waa maqasheen muxuu ahaa wararka ku maqasheen meelo qaar sida New York oo kaleeto ay ka go'ayaan marka sababaha marka ay ku hayso in la xiro wadamada oo maaragtay bulshada socodkeeda la yareeyo kuwaas ayaa ugu waaweyn insha allahu tacaala wixii su-aal ah waxaa noogu soo gudbin kartiin ururka takhaatiirta Finland muxuu ahaa pagekooda iyo maaragtay muxuu ahaa website-yadooda hadduu aan leedmo waxaan rajeynaa videogan yar in maaragtay uu waxaa fududeeyey muxuu ahaa fahamka waxyaalaha keenay in maaragtay muxuu ahaa saan laisku xadido insha allahu tacaala khayr ayaan idin rajeynayaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu